maanta oo ay bishu tahay 15 ee miilaadiga bishii 10 ama Oktoobar 2020 kelmado dhowr baan halkan ka tilmaami doonaa anigoo ah Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan arday ka mid ah ardayda maanta ka qalin jabinaysa ama ka qalin duwatay jaamacadda Najaax leeyahay فأولاً mahad celin yaro kooban oo aan u qalmin jaamacadda iyo dakaatiradii wax na soo bartay baan mahad celinay dakaatirada iyo macallimiinta iyo maamulka iyo boardka nagu soo tacabtay muddadii 2 sanadood ahayd ee hawsha ama shawdka aad u dheer aan soo goynay waxaan ugu tahniyadeynaya kaliya ardaydiina inay najaxday maantana shahaadooyinkoodii ay qaadanayaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad iyo thawaab dheeraada fi dunya wal aakhirah ha idinka siiyo waa mahadsantiin macallimiinteeda shakhsiyan maanta waxaan u faraxsanahay si qeyr caadiya ma aha inaan darajo ama aan dhameeyay mid ka mid ah culumta sare waxaan ku faraxsanahay laba shay mas'uuliyad aad u weyn anigoo xambaarsan inaan isku dhibay inaan dib wax u barto oo waqtigayga dayiq iyo cidhiidhiga aan ka jaro midaan wax ku barto waxaan kaloo ku faraxsanahay Zakariya halkan buu ka hadlayay macallimiintu magacaabayay ka mid baan ahay wala macallimiinteedii inaan maanta halkan kala qalin jabino waxaan ku faraxsanahay inaan la qalin jabiyo ardaydii dugsiga sare aan u soo dhigayay jaamacadda aan u soo dhigay digriigii koobaad oo waliba qaarkood aan fasal wax kula baranayay taana ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad baan uga naqaynaa waana ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 2008 meelahaas waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Burco oo digriigii koowaad ka qaatay mowqifkan oo kale maalintan taagnaa qasiido jacbura baan halkan oo kale ka tiriyay luqadda carabiga ku baxaysay kelmadda waxaan ka daba geynayaa macallimiintaydii oo aan waqtigaana 2 bayd qasiidada ugu daray maantana aan dakaatiradii ajaanibka ahayd iyo dakaatiradii localka ahayd wax noo soo dhigtay aan ugu daray kelmaddaasi waxay ahayd maqaalo hore loo yaqaanay oo dadkii ilaahay doortay subxaanahu wa ta'ala ay nooga tageen tii baan 1 bayd ama 2 bayd meelahaas ka dhigay bayd ma xasuusni 1 bayd baan xasuusanahay wuxuu ahaa man zaada li harfan min al-ihsani sirtu lahu 'abdan ma'a imtinani inta waa ku bogaadinaya oo ka daba geynay waxaan kaloo iyagana doonayaa mar saddexaadka ku dayasho inaan u noqono dhalinyarada iyo ubadka aan dhalay oo kamida ardayda jaamacadaha ku jirta kamida waqtiga iyo mas'uuliyadda culus iyo waqtiga iyo da'da aan joogno ee aan wax ku baranayno berigaas 2008 jaamacadda Burco ka baxnay qasiidada aan tirinayay waxaan isleeyahay inta waa ka dhalinyara dhowr iyo 10 sano ka hor maalinta waxaan saadaalinayay baan isleeyahay maanta mowqifkan taaganay anigoo ka hadlaya intee wax lagu baran karaa da'dee wax lagu baran karaa iyadoo hore looga hadlay 2 bayd baan ku soo koobay fi xaalati siba wa fil mashibi qul aadi ma farqin ala al-labibi ama yarow ama weynow mar kasta inaad baahan tahay
inaad wax sii barato oo aad wax kororsato. beedka labaad wuxuu ahaa beed qosol leh. maalintaa ma joogin laakiin maantuu joogaa. wuxuu ahaa anigoo ka hadlaya ardaydii markaa igala baxday jaamicadda oo qaarkood ay midhmidh ciro lahaayeen, da'dana laga yaabo markaa halkaa nin iyo laba inay ku dhowaayeen. beedkaasuna wuxuu ahaa waqaaraba alcumru cala asabciini wajaawaza albacdu cala asittiini. waxaan isleey maanta halkii maalintaa maan joogin laakiin meeshii maantaan taagana ilaah isoo gaadhsiiyey. maanta iyadoo ubadkaygii dee ay guryo leeyihiin inaan waxbarasho u taaganahay baanu mahadnaqaya. jaamicadda najaax waa jaamicad da'yar. ardayda maanta ka qalin duwatay 200 bay kor u dhaafeen. intaasaa kaaga filan halka ay ka taagan tahay bulshada ama reer Burco ama gobolkan Togdheer ay ka taagan tahay. ardaydana mid baan leeyahay maanta lodkayga dalka iyo dadku cidda uu sugayo waa idinka. waa markii la oran jiray markaan idinka idin laaleekayn. waxaan dhiiri gelinaya maaha marka maanta 500 oo arday ay halkan oo kala joogaan in lagu hamiyo inay ku koobnaadaan oo kaliya miidaanka tacliimta ku koobnaadaan. waxaan dhiiri gelinayaa oo aad u dhiiri gelinaya inaad ka mid noqotaan hoggaanka dalka aad leedihiin, inaad ka mid noqotaan. fadhi iyo fuudi cibeed la isku waa sidee maxaa lagaaga baahan yahay, maxaa lagaa doonaya, maxaad shareecada u baratay, ma inaad malcaamad furato mise inaad markis furato, mise inaad masaajid kitaab ka akhrido keliya? maya, mujtamacan aad ku dhex nooshay inaad wax ka bedeshaa baa lagaa doonaya. si aad wax uga bedelaysa waxaad wax uga bedeli kartaa sida ugu sahlan inaad ka mid noqoto hoggaankii ummadda hagaya. haddii kale weligaa marti baad noqonaysa. markaa waan dhiiri gelinayaa, waana ku celcelinaya. waxaan igu kalifaya markaa maanta inaan idhaahdo waxaan arkayaa halka maanta culimmadu ay marayso iyo waqtiyada qaarkood marka dawlad la yidhaahdo culimmadu siday ahayd ama siday noqon jirtay ama wixii laga aaminsanaa. maalin kasta waa waqti, maalin kastana waa cid, maalin kastana waa aqoon, maalinbana awr baa dhaamiya. maanta idinkaydin saaranta adigoo wasiira mixraabka adigoo fadhiya oo xaqreeya, adigoo oo bara saaba oo maayara oo wasiira oo waxna akhriya waxna dhigaya waxna dhiganaya way ka sii fiicanta inaad iska fadhido tiraahdo waxba muxuu haayay shareecadu isaga ka iman mayso, tabdiilku isaga ka iman maayo. wadaadow waxaa lagaaga baahan yahay ideolojiyo tan ka fog baa lagaaga baahan yahay. ideolojiyo tan ka fog baa lagaaga baahan yahay. yoolkan ka fog baa lagaaga baahan yahay. weliba ragga qaarkii waan ogahay maca alkhilaaf bayna alculamaa qadiiman wa xadiisan, iyadoo taasina ay jirto. anugu dhinacan kale aan xoojinaya. bareere hadalkayga waxaan ku soo koobaya wiilkaygiina waa kan barbar taagana waa kii markan iskiin ag taago waa idinka dhintahay wey waa ka baxaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa ardaydayadan iyo kuwa ka dambeeya iyo kuwii ka horreeyey waxa laga filayo ee khayrka ah iyo waxaan laga filaynba in laga helo. dhallinyaroy dalka iyo dadka aayihiisuna idinku idin saareen. ninkii weynaa waa sii socdaa, nin la sugayo adna yaad sugi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.